السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وعشركii 12 ee kitaabkii ajrumiga ahaa. ilaahay hana fahansiiye hana noo furo insha allahu tacaala. waxaan maantay ka hadli doonaa xuruuftii wax reebaysay. waxaan kusoo jirnay afcaashu saddexan kasoo dhignay ama ficiladii falalkii. qayb waxay ahayd waxa leeraa maadiga oo falka tagay ah, amarkii oo wixii markaas lagu amray inaad samaysid. labadaas si gooniya usoo faahfaahinay. maadigana waxaan idhi waa la kordhigayaa ilaa oo waxaa lagu binaynayaa fatxa ilaa xaalado gaara maahane. amarkana waxaa lagu binaynayay wixii mudaariciisa lagu reebi jiray. kabacdi ficilka mudaaric ahan kasoo hadalnay. waa la godaa haddii uusan xaraf wax kordhiga gelin ama xaraf wax reeb tahay uusa gelin. haddii xaraf wax kordhiga uu galo waa soo marnay, waa kasoo sheekeynay 10 xaraf wax kordhigta. haddana waxaan gelaynaa insha allahu tacaala 18 xaraf oo wax reeba. 18kaas xaraf oo wax reeba, lixda hore ee haddii la kala qaadqaado 8 iska noqon kara waxay reebtaan hal ficil. qeybta dambe 12ka dambe waxay reeba doonaan 2 ficil iyo idaa oo dheeraadahoo tirsiga uusada ku sheegin. wuxuu yidhi waljawaazimu waxyaalaha wax reebaahi 18 18 wey. 18 ayaa wax reebta. wahiya 18dii lam kelimada leeraa weeye, walama weeye, wa alam weeye, wa alama weeye. walaamul amri amarka iyo faritaanka wax lagu amrayo laamtiisii weye, iyo waduca ay ducada laamteedii weye. hadda 2 tusaale kala qaadan doonaan, laakiin hal xabay tirsiga isku yihiin. walaa kelimada lale weeye, laa oo fi nahyi diidmada ku jirta, iyo waduca ee baryaha ku jirta. hadda 2 tusaale kala qaadan doonaan tanna, laakiin tirsi ahaan waa hal xabo oo 6an marayna markaas weli. 7aad waxa weeye in kelimada leeraa waa in weeye. 8aad wamaa weeye. 9aad waman weeye. 10aad wamahma weeye. 11aad waa idma kelimada leeraa weeye. 12aad waa ayu weeye. 13aad wamata weeye. 14aad waa ayna weeye. 15aad waa ayaana weeye. 16aad waa anna weeye. 17aad waa ithma weeye. 18aad waa kayfama. idaa marka oo waa idaa fi shicri khaasatan waa tirsi dheeraado 18 ka dheeraado sheekhu ku daray. waa idaa kelimada idaa leera weeye oo fi shicri gabayga dhexdiisa ahata khaasatan gaar ahaan oo markay gabay gasho ayay wax reebi doontaa. 18kaas marka lixda hore oo haddii maaragtay labada laam dambe la kala furfuro 8 isku tagaya oo waxa weeye hal ficil ay reebtaan. kuwa dambana 2 ficil ay reebtaan. tusaalan soo qaadanaynaa lam ka bilow. lam ayadoo ficil reebtay qur-aanka qul huwalla fiiri. lam yalid alla ma dhalin, walam yuulad alla lama dhalin, walam yakun mana ahaanin lahu alle kufuwan axadun qof kufuwan mid u beegtooma. yani kufuwan mid u beegtooma axadun ma ahaanin, cid u beegtoonta ma jirto. marka lam yalid waa reebanta, walam yuulad waa reebanta, walam yakun waa reebanta. saddexdaba lamtaa reebatay. lamaadana waxa weye lamaa yaduuquu cadaabi. waxa weye yaduuquu cadaabi. yaduuquuna maalan ba afcaalu 5 yaduuquuna maxaa lagu reebi jiray haddii la reebaya xadfu nuun. yaduuquu wataas lamaada marka gasha. lamaa yaduuquu wataas. alam waxa weye alam nashrax wataas ku jirta. alam nashrax wataxaadi ay reeban tahay. alama uxsin ilayka miyaana kuu wanaagsamayn. alama uxsin ilayka miyaana kuu wanaagsamayn. walaamu lamri laamtii oo amarka keenaysay oo qofka wax la farayay waxaa samee. ilahay wuxuu leeyay qur-aanka liyunfiq ha nafaqeey duu sacatin min sacatih. marka liyunfiq ha nafaqe laamtaas waa laamu amar, ficilkiina waa taas la reeba. liyunfiq waa tafaadi reebanta, qaafku reeban yahay. walaamu duca laam oo duca ku jirta baryo. waxa weeye liyaqdi ha xukumo calayna anaga korkeena rabuka. waa baryo ilaahay lala hadlaya. amarka markii aan soo joogno waxaan soo niri amrun maca isticlaa wa cagsuhu ducaa wafi tasaawi faltimaasun waqaca. yacni markii cid kaa hoosayda aad la hadlaysid amar weye. markaa cid kaa saraysa la hadlaysidna baryo weye, duco. haddii cid kula sana aad la hadlaysina dalab wey.
marka ilaahay anaga markuu nala hadlayo waa amar ilaahay liyunfiq leh marka oo anagu ilaahay la hadlaynana baryo wey oo ilaahay liyaqdi calayna marka ay leeyihiin liyaqdi ha xukumo iyo ighfir lana ilaahu noo dhaaf waa baryo hadda laakiin tan waxa weeye waxaan ku jirnaa ficil reeba liyaqdi wey marka yaqdi ay ahaa lahayd ya-daasa ku jiri lahayd haddii aysan reebnaa lahayn ya-di laakiin waa la jaro ficilka mudaarica ee gadaal ka jiran marka la reebayo waxa weeye muctal aakhirkii waa tii la jari jiray xarafka jazmaha xarafka jazmaha waa tii uu reeb gadaal oo dhan jari jiray qartab uu sii jiray waxdif jaaziman halaaatahuna taqdi xukman laaziman alfihu watuulaha waayahay marka liyunfiq waxaa lagu reeba reebkaas caadiga liyaqdina waxaa lagu reeba ya-dii oo la jaray liyaqdi meeshay noqon lahayd walaa kelimada laa weeye oo fi nahyi diidmada ahaato diidmo marka maalan laa taxzan ha kurboon laa tafcal ha samayn laadaas diidmada ku jirta wey walaa weye oo hayana fi ducaa baryaha ku jirto waxa weeye laa tu'aakhidna ilaahow hanoo qaban tu'aakhid wataa reeban marka anagu ilaahay markaan la hadlayna barya weye ilaahay aan baryana laa tu'aakhidna ilaah hanoo qaban nahyi ma dhahayno ilaahay waxba anagu kama reebi karno laakiin qof maalan ba kaa hooseeyo qof kula sinanay markaa wax faraysaa nahyi leeda markaas marka intaasi waxay reebtaa hal ficil inta hadda soo socda laba ficila reebaan labadaas ficil ficilka hore waxaa leeraha shardi kan dambana waxaa leeraha jawaab maalan ba waxaa tiri haddii aad ii timaadid waan ku marti qaadaya u fiirso martiqaadkaagu wuxuu jawaab u yahay imaashaha shardi wuxuu imaashuhuna waa shardi haddaad ii timaadid taasaa shardi leeraha waa ku marti qaadaya waa jawaab aa leeraahdaa ama jaza marka labadaas ficiloo kaas shardiga iyo kaas jawaabka ay labadaba reeba doonaan 12 xarafoo soo socda ama kelimo soo socota waa in kelimada in leera wey in tusaale aan soo qaadano in tansuru llaha yansurkum ilahay wuxuu le in tansuru llah in waa xarfu shardi tansuruu wey iyo allah markii laisku qabta tansurullah noqonaysa tansuruu waa reebanta ficilkaasi waa ficil afcaal khamsa reeban intana lagu reebay tansuruuna ay ahaa lahayd haddii aysan reebanayn afcaal khamsa nuuntii oo la jara lagu reebi jira marka tansuruu waa reebantaho nuuntiyaa la jaray allaha yansurkum in tansurullaha lahdaas waa mafcuul hadda halkaan kama hadlayno yansurkum ra'di oo taas reeban jawaabkii ficilkaa dambe waa jawaab waa reeb marka ama jazana waa leeraha waa reeban yahay oo nuunta horaa lagu reeba marka intii maxay reebata tansuruu oo nuunta goynteeda lagu reeba iyo yansurkum oo sukuunkaas lagu reeba waayahay wamaadiina ayana waa sidaasoo kale wamaa tafcaluu min khayrin yaclamhu llah wamaa tafcaluuna soo mahan tafcaluuna ay ahaa laheed haddii nuun aan reeb jiri lahayn laakiin tafcaluu markii la yidhi waa reebanta wamaadaasa xaraf wax reebta ah marka yaclamna waa reeban tahay oo wataas waa jawaabkii wixii aad samaydan oo khayra ilaahay waa ogaanaya alla ogaadee wamaa tafcaluu min khayrin yaclamhu llah waayahay waman kelimada man leerahda wey manna waxbaa lagu reebaa man yacmal qofkii sameeya suu-an xumi yujza bih yujza marka yacmal waa reebanta man yacmal waa ficlu shardigii yujzana waa reebantaho waa ficl mudaaricaho muctalu aakhira dhamaadka ka jiran maxaa lagu reebi jiray in la jaro somaha yujza wataas aliftiyaa la jaray marka yujza aa la yiri marka hadda inuu reebay waxaa noo daliila aliftiya go-an marka mantii maxay reebatay yacmal iyo yujza labadaasay reebatay midna sukuunkiyaa saaran oo yacmal midna waxaa saaran aliftiyaaba go-an ujeednaa yujza taas xadafa lagu reeba waa mahma kelimada leeraa mahma wey mahma ayana waxay reebataa laba ficiloo ficilka hore ficlu shardiya leera iyaduna waa aadaatu shardi ficilka dambena jawaabu shardi ama jaza leera marka maxay noqonaysaa mahma xadiidkii nabiga xadiidkii caaisho hadalkii caaisho saxiixu muslim ku yaalay mahma yaktum innaasu yaclamhu llah riwaayad kale faqad calimahu llahu iyo marka hadda kan waxaan rabnaa anagu reeb ku yahay mahma yaktum innaasu yaktum taas hadda yaktumi waxaa loo leeyahay iltiqaau saakinaynka labada reebanoo kulmay laakiin icraab ahaan yaktum wey mahma yaktum iyo yaclam taas dambe
mahma maxay reebatay yaktum oo reebatay iyo yaclam. marka yaktumidaas hoose dhigaas haddaa fiirin icraab maahan kaasi daruura loo keeno annaas sidaasaa lagu dhawaaqi karaa haddaan la hoos dhigi sida lam yakuni ladiina oo lamta iyada ku jirta yakuni leeri taasoo kale wey. marka mahma yaktum iyo yaclam labadaasay reebatay mahmaan wixii dadku qariyaan alla ogaanaya. wa idma kelimada idma leera wey iyana waxay reebataa idma tajlis meel allale meesha aa fariisatid ajlis aniguna waa fariisanaya. idma tajlis ajlis fi ayi makaanin tajlisu ajlisu wey macnaheeda. marka idma tajlis idmaadi waxay reebatay tajlis iyo ajlis. tajlistaa hore waa jawaabu shardi ficlu shardi ajlis dambana waa jawaabu shardi. wa ayu wey kelimada ayu la yiraahdo ayu waxa weeye ayan tafcal afcal wax kasta oo aad samaytid ana waa samayna. ayan tafcal afcal tafcal waa reeban tahay afcalna waa reebantahay taas. tafcasha hore waa ficlu shardi ayuna waa aadaatu shardigii afcalta dambana waa jawaabu shardi ama jazihii shardi. waa mata shardiga waa waxaas ku shardido waxaas haddaa samayna ana waxaasa samayna wey. waayahay waa masalada khatarta markastaba oo xaasaska iyo nimanku marka isku dhacaan oo wax ku shardiyo dumarkan ay sameyn leeyahay haddaad guriga ka baxdid ama haddaa waxaa samayda waa furan tahay ayadana waxa ay samaynayaan marka shardiga dhacayo furiinka dhacayo khatar wey in la iska ilaalisho wey. waa shardiga taasoo kale wey. wa ayna kelimada ayna la yiraahdo weeye maya mataa amarayna wa mataa weeye mataadii mataa ta'kul akul markii aa cuntaa cunaya markii aa cuntaa cunaya qof martiyaha kula joogo cuntadii cuni diido oo arkaysa markaas kule adigana cun soo tire mataa ta'kul akul markii aa cuntida cunaya. marka ta'kul waa reeban tahay waa ficlu shardigii akulna waa reeban tahay waa jawaabu shardigii. wa ayna kelimada la yiraahdo weeye aynana waxbay reebataa laba ficlo ficlu shardi iyo jawaabu shardi. kan kood waxa weeye aynamaa takunuu meel allaala meeshii aa ahaataanba takunuuna ay ahaa lahayd haddii ay godan tahay laakiin hadda waa reebantaho waa ficlu shardi oo afcaalu khamsa ah xadfu nuuna lagu reebo takunuu aleer. marka aynamaa takunuu meel allaala meeshaa noqotaanba yudrikkum waxaa idin haleelaya almowt. marka yudrik iyo kum laba kale yihiin kumtu waa mafcuul marka yudrik aan ka rabna hadda jawaabu shardiga. marka aynamaa takunuu nuuntiyaa la jaraa lagu reebo yudrikna sukuunkaasa lagu reebo. wa ayaana kelimada la yiraahdo wey ayaana maa tacdil acdil ayaana maa tacdil yani mar allaala markaa cadaalad samaydid acdil aana cadaalad samayd. marka tacdil ficlu shardigii acdilna jawaab shardigii. wa anna tastaqim markii aad toosnaatid tarbax waad faa'iideysaa. marka tastaqim iyo tarbax markaad toosnaatid waa faa'iideysaa waayahay. wa xayثumaa wey kelimada leeraha xayثumaa tastaqim meel allaala meeshii aad joogtid oo toosnaatid markay yani waqtigii aad toosnaatid meeshii aad haddii aaba toosnaatid yuqadir laka allahu najaaxa ilahay wuxuu ku qadarayaa najaax guul. marka xayثumaa tastaqim taas iyo yuqadir labadaas tastaqim waa ficlu shardiga waa reeban yahay sukuuna la saaray yuqadirna waa jawaabu shardiga waa reeban yahay sukuuna la saaray. wa kayfama kelimada leeraha kayfama weye kayfama tajlis ajlis yani si allaale sidaa u fariisatid qaab allaala qaabka u fariisatid aniguna u fariisanaya kayfama tajlis ajlis. intaas waxa weeye 12 dambe oo in laga soo bilaabo waxa weeye laba ficil ay reebtaan waa ayana waa sax weeye. idaa hadda uu ku daray idaa laakiin marka wax reebanayso gabayga bisay ku jirtaa. wa idaa kelimada leeraa idaa weeye oo fi shicri gabayga dhexdiisa ahaatay khaasatan gaar ahaan. marka tusaale waxa weeye wa idaa tusibka khasaasatun fatajamalii gabaygaas. wa idaa tusibka hadday kugu habsato khasaasatun baahi iyo duruuf fatajamalii isqurxi. shicirka fatajamalii loo leeyahay sida cadiga fatajamal wey fatajamal isqurxi.